أحبتي في الله من تاريخ ذا عاو تاريخ ذا ولحية لباتنكا بيش اللبات لوضكم شيء لباتنكا وأربعو أو أي خميس إيسو قليسو. أحبتي في الله وإذين هرمرسينا يا وحان إذن لي هاي رمضان مبارك أيان إذن لي هاي إن شاء الله. عاو حكا إذن سو جيدنا ولا ليال hadda ka hor waxaan idin soo geliyay weliba maalmo ka hor haddii aad hal saacadood aad akhriso suuratul falaq iyo suuratul naas oo wada jira adigoo aadan tiro qabsanin adigoo daahir ah intaad qiblada aadisanto saacad aad qabsato rabbil falaq rabbil naas aad akhrisato wixii kugu dhici kara ama wixii oo abaal gud ah aad helaysid ayaan soo gudbiyay. Haddaba waxaad idin hayaa walaalayaal gabar Soomaaliyeed xanuunsaneed muddo 3 sano ah wixii hayay la garan weysanaa markii ay bilowday maalinkan soo geliyay ilaa iyo maanta oo Arbaca ah ay taariikhduna ay tahay 26 ayaa bishaaradu ii timid. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله وسودا وذا الشيخ ريمي channel waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan dal iyo dibadda iyo da' kastoo aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kastoo aad tihiin rag iyo dumar Allah subxaanahu wa ta'ala waxaa idinkaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh adduunyo meelsan leh aakhira janno leh inuu nasiib dhammaanteena aamin aamin aamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazana idha shi'ta sahla sahil muradi wa murad al-muslimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبتي في الله من تاريخ ذا عاو تاريخ ذا ولحية لباتنكا بيش اللبات لوضكم شيء لباتنكا وأربعو أو أي خميس إيسو قليسو. أحبتي في الله وإذين هرمرسينا يا وحان إذن لي هاي رمضان مبارك أيان إذن لي هاي إن شاء الله. عاو حكا إذن سو جيدنا ولا ليال hadda ka hor waxaan idin soo geliyay weliba maalmo ka hor haddii aad hal saacadood aad akhriso suuratul falaq iyo suuratul naas oo wada jira adigoo aadan tiro qabsanin adigoo daahir ah intaad qiblada aadisanto saacad aad qabsato rabbil falaq rabbil naas aad akhrisato wixii kugu dhici kara ama wixii oo abaal gud ah aad helaysid ayaan soo gudbiyay. Haddaba waxaad idin hayaa walaalayaal gabar Soomaaliyeed xanuunsaneed muddo 3 sano ah wixii hayay la garan weysanaa markii ay bilowday maalinkan soo geliyay ilaa iyo maanta oo Arbaca ah ay taariikhduna ay tahay 26 xilligan videoga aan duubayo waa 26 waxaa laga yaabaa inuu videogan idin soo gaaro 27 taariikhda mar ay tahay inuu idin soo gaaro ay dhici kartaa maxaa yeelay waa habeennimo oo Arbaca ah ay khamiis ay soo galayso insha Allah biidhnillaahi alkariim ayaa bishaaradu ii timid. Aniga waxaan rabay ritul khamiista ah inaan soo geliyo videoga aan idinku talagalay ee ahaa xawlqalada 7 faa'iido ee qofka uu ka helayo haddii uu daa'imo biri khamiista inaan soo geliyo ayaan rabay doo Ilaahay naftu noogu simo laakiin gabar ordaysa bishaarana wada ayaa telefonkeeda soo gaaray bishaarada ay ii sheegtay
ayaan rabaa cawada inaan idinla wadaago. La soco videogan ilaa dhammaadkiisa insha Allah biidnillaahi alkariim. Axibbatii fillah, videogan xaqiisa si oo like-ta noogu badi. Intana idin soo gelinin masaajidkii gabagabadiisa videoga xigo ayaan idin soo gudbinayaa meesha uu marayo iyo sida uu yahay, maadaama jimcaha la furay rabo. Allahu akbar. balse waxaan idin soo gelinayaa walaalayaal, maadaama sabtida loo malaynayo Ramadaan 1 in ay tahay. walaalayaal, dad badan ayaa dhiban, dad badan ayaa gaajaysan. waad ogsoon tihiin meesha anaga aan joogno masaakiin badan ayaa jirto. qofkii qof laga afurinayo, qofkaasi waa goonigiisa, ileen fidye ayaa laga bixinayaa. qofkaasi qofkii rabo in qof loo afuriyo wuu nala soo hadli karaa, laakiin anaga waxaan xoog saaraynaa 2 qaybood. marka hore, qoysaskii ilmihii agoonta ahay, qoysaskoodii oo ilaa 40 qoys gaarayay, afurintooda adinka ay idinka rabaan. waan idin sheegay halkii qoys $150 ayaa lagu afuriyaa oo loogu adeegaa. adinka ay idinka warsugayaan ilaa iyo hadeertaan biidnillaahi alkariim. qoyskaas dadkaas inta idhig. balse waxaa jira walaalayaal, wax markasta aan ku soo celceliyo ayaa ay jirtaa oo videogayga maanta aan idinku kala cadeyn doono amaba aan idinku faahfaahin doono. waxaan soo iibinay ilaa iyo 3 digsi ayaan soo iibinay oo waaweyn. midna waa 50 kiilo ayuu qaadaa. waa midkaan ugu talagalnay inaan bariiskii aan ku karino 50 kiilo oo garaam, 100kii qofood aan rabin inaan ku afursiino. haddaba halkii kiilo 2 qof ayaa loo qaybinayaa insha Allah biidnillaahi alkariim. afur fiican oo xitaa ilaa iyo casho una u baahanaynin ayaa magaranaysaa la siin doonaa. waayahay, digsiga labaadna 25 kiilo qaad waaye. neefkii ariga ahay hilbihiisa ayaa lagu jarjarayaa biidnillaahi alkariim. 100kaas weel ayaa la rabaa in loo qaybiyo biidnillaahi alkariim. digsiga saddexaad waa 10 qaad, 10 kiilo ayuu qaadaa. waxaa loogu talagalay korshubkii iyo kusaarkii iyo magaranaysaa maraqii amaba iyo dhacaankii ayaa magaranaysaa loogu talagalay oo qofkaasi saa'imka ah lagu afursiinayay oo loogu dhanaaninayay amaba loogu macaynayay insha Allah biidnillaahi alkariim. 100 qofood oo dhan waxaa lagu afursiinayaa baan idin iri, bariiskiisa iyo hilibkiisa iyo muuskiisa iyo timirtiisa oo iswata $150. haddaba dad baa wax soo baxsaday, laakiin maalmo ayay qabsadeen. gabar ahlu khayr ah ee Zainab la yiraahdo waxay qabsatay 27ka markay tahay waa xilliga loo badinayo Lailatul Qadarka in ay tahay. xilligaasi ayay dooratay. waxay tiri labadeeda 117ka haleegu geliyo oo dadkii haleegu afursiiyo inta idhig. gabar kale ayaa jirto oo gabdho badan ahlu khayr ku xiran oo Jarmal degan oo la yiraahdo Amatullaahi ayaa la yiraahdaa. gabadhii oo reer UK ma aha Amatullaahidan waa reer Jarmal. ayadana waxay dhahday isbuucan soo socda ma ahee, yani isbuucan Ramadaanta markay tahay 7 ay ku soo aadayso, jimcaha soo aadan, kan oo beri damba ma aha, kan beri damba Ramadaan ma aha, Ramadaanta jimcaha ugu horeyso bay tiri anigi iyo asxaabteyda ayaa qaadanay. 30kii maalmood ee Ramadaan 2 beri kaliya ayaa laga qaatay. labadaas qofood ahlu khayrka ah ayaa kala qaatay. jimcaha soo aadan sabtiduu Ramadaan yahay, sabti, axad, isniin, talaada, arbaco, khamiis, jimco, waa maalinta 7aad ee Ramadaan. gabadhaasi Amatullaahi la yiraahdo iyo asxaabteeda ayaa afurkii 100 qofood bixiyay. 27kana gabar Zainab la yiraahdo
ayaa ayadana bixisay 200 ayay soo bixisay marka waxaan rabnaa inaan u qaybino 10 qayb 10ka koowaad oo ah arraxma rabatan nabigu uu leeyahay awaluhu raxma wa awsatuhu maghfirah wa aakhiruhu cidqun min annaar awaluhu 10kiisa ugu horeeya oo raxmada ah gabdhahan oo reer Jarmalka ah oo amatullahi ay u horeyso ayaa hal maalin ay ka qaateen 9 maalin ayaa dhiman waa maalinta koowaad maalinta labaad maalinta saddexaad maalinta afaraad maalinta shanaad maalinta lixaad iyaga waxay qaateen maalinta toddobaad maalinta sideedaad way naga maqan tahay sagaalaadna way naga maqan tahay tobanaadna way naga maqan tahay axibbatii fillah yaa qaatay ramadaanta kowgeeda qofkii qaadanaya ramadaanta kowgeeda waa nala soo hadlaya maalinta koowaad way ku banaan tahay qofkii raba maalinta labaad qofkii raba maalinta saddexaad qofba maalintuu raba ha qaato axibbatii fillah 10ka ugu horeeyo hal qof kaliya ayaan ka haynaa waana maalinta toddobaad yaa noo bilaabayo oo Allah subxaanahu wa ta'ala balaayi kasta ka xijaabayo yaa inoo labaynayo Allah subxaanahu wa ta'ala laabtiisa u yeelayo yaa inoo saddexaynayo sakaraadka iyo su'aasha iyo siraadkii silac lagu marayay ilaahay si fudud ha kugu marsiyo insha Allah biidnillahi alkariim qofkii raba yani 100 qofood ayaa lagu afursiinayaa hal maalin 100 qofood oo Soomaaliyeed masaajid iyaga oo jooga waa masjidkii anaga aan dhisaynay iyaga oo jooga Allahu akbarta koowaad lacagtaada 150 kaaga timirtiisa ayay cunayaan bariiskii ayay cunayaan hilibkii ayay cunayaan muuskii ayay cunayaan qudaartii ayay cunayaan $150 hal maalin 100 qofood ku afuri axibbatii fillah $150 hal maalin 100 qofood ku afuri 100kaas qofood ajarkiisa hel intaas waa ila fahamtina umaleynaya lambarada marka waxaad noogu soo hagaajin kartaan hoos ayay ku qoran yihiin balaas 2526 EVC dahab waa uu leeyahay magac ku soo baxayana waa Cabdulqaadir Sayid Ibrahim axibbatii fillah lambarka kaleente waa 2526 hal kale 3049 isagu dahab ma laha EVC ayuu leeyahay magac ku soo baxayna waa Cabdulqaadir Sayid Ibrahim waad ifaantina umaleynaya intaas hadaan uga gudbo barnaamijkeena cawda ayaa u gudagalaynaa walaalayaal cishihii ka bacdi ayaa gabar telefoon ii soo dirtay waxayna ka soo hadashay Sweden Allah waxay tiri saddex sano ayaan xanuunsanaa meel kasta dhakhtar kastana waa tagay cudurkayga in la daweeyo iska dhaafe wuxuu yahay ayaa la garan waayay ilaa markii dambo la idhaho waxay u baahan tahay dhakhtar cilmu nafsi ah ay u baahan tahay ilaa la yiraahdo waan yaabay bay tiri aniga oo rabo in aan aado dhakhtar cilmu nafsi ah si uu iigu sheego amaba at least uu u garto waxa i haayo waxay yihiin ayaa videogaaga ilaahay isoo gaarsiiyay bay tiri goortay ahayd iima sheegin laakiin waa markaan sheegay rabbil falaq iyo rabbil naas wixii ka dambeeyay waay waxay tiri war sheekhan siduu sheegay armay macquul tahay armay waxaan il tahay oo ishii qofkii ku ilaystayna uusan arigaba joogin inuu dhintaa laga yaabaa inuusan ariga joogin baa laga yaabaa marka bal waxay tiri waa qur'aan nabiga hadda ka hor lagu daweeyay bal saacadii la sheegay qabso rabbil falaq iyo rabbil naas adigoo weyse qaba akhri baan isri bay tiri waan fariistay waan weysaystay qiblada ayaan isku aadiyey kabacdi waxaan bilaabay rabbil falaq iyo rabbil naas saacadii ayaan qabsaday bay tiri meesha waxaan geystay bay tiri oo waqtigu uu ordaayo daqiiqad 2 daqiiqo saas
ay soconayso rabbil falaq rabbil nas ayaan waxaan ku akhribi jiray si kal iyo laab ah axibbatii fillah sidaan u waday bay tiri halkii saac markaan dhameeyay anoo caadi ah iska soo kacay bay tiri kabaabiyooday lugihii i kabaabiyoodeen xoogoo diiqad iyo cariiri aan dareemayo waa iska istaagay bay tiri maalinkii kale sidii ayaan yeelay 7 casho markaan marayay horta qur'aankii ayaaba ii furfurmay bay tiri qur'aan ma akhrisan jirin lugahayga way baraarsanaayeen waxa ay bararsanaa bay tiri cirbaha maaragtay halaha dambe qoobka ciribta dambe ayaa i bararsaneed bay tiri lugi cirib dambe way i bararsaneed lugta kaleentana baabacada ama meesha cagta la saarayo dhulka la saarayo la dhahayo rasmadaarta ma la dhahaa taas ayaa yacni waxaa ka kacsan bay tiri maaso ayaa ka kacsaneed waxba igaga dhex ordayay heer waxaan gaarayaa bay tiri in aan soo qaato qaado amaba wax ballaaran aan ku garaaca bay tiri ku garaaco wixii way ordayaan waa ku garaacaya waxay tiri shaqo ma jirto meeshaan ka shaqeynaya waa layga soo ceyriyay shaqo kasta aan dalbadana waan waynaya meeshii shaqo ka banaan haddii aan aadana saasoo kale waan waynayaa bay tiri guriga iska soo fariistay aniga oo Yurub jooga ayaa waxaan dareemay bay tiri diiqad iyo busaarad iyo dhibaato ayaan dareemay bay tiri oo xitaa markaan Afrika joogay aanan dareemin marka waxay tiri qur'aankii ayaa ii nuuray salaadii ayaa ii soo dhadhantay diintii ayaan jeclaaday culays badan inuu iga degay ayaan dareemayay waa wadaa bay tiri waa wadaa ma joojinay ilaa markii dambe aan fiicnaaday bay tiri oo nadiif aan noqday waxa igaga sii daran oo cawada aan kula soo hadlay waxa waaye bay tiri anigoo rabo inaan kula wadaago caafimaadkayga aan helay inaan kula wadaago anigoo oo rabo shaqadii aan haysan jiray shaqo ka wanaagsan ka qurux badan ka lacag badan ayaa la ii soo wacay bay tiri leema soo wici jirin waa la ii soo wacay waan ka mid noqday ramadaantan sideed ku soomaysaa ayaan isdhahayay maanta ayay bishaaradaasi ii soo dhacday waxaan jeclaystay bay tiri anoo markii hore ku soo socday caafimaadkayga yacni kuu bishaareeyay aan rabay shaqadeydii ayaa hadeertaan ii soo dhacday waqtigii aan rabay inaan ku soo bishaareeyo sidaas darteeda ayaan u soo hormaray bay tiri wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi bay tiri birabbi falaq iyo birabbi naas waa ku liibaanay ciddii dhibaatada aniga i haysata aan ka sheekiyey oo kale haysata ilaahay waxaan ka baryayaa bay tiri inuu caafimaad sariicana uu siinayo halkaas saacadood birabbi falaq birabbi naas leh hala akhriya bay tiri allahu akbar walillaahi alxamd axibbatii fillah nebiga ayaa markii culays uu dareemay lagu soo dejiyay 11 aayad oo ciyaar ma aha haddii aad hal saac akhrisidna wayba ka sii wanaagsan tahay gabadhan waxaa laga yaabaa xilligan fiidiyogu soo geliyay ma xasuusto in 40 beri ayna ka soo wareeginin ayaa ay dhici kartaa dad badan oo isoo wacay way jiraan 40 beri aan u sheegay way jiraan laakiin gabadhan bishaara ay ii soo sheegtay axibbatii fillah intaasaan soo gabagabeynayaa waxaan helay nafya shaydaan allah naga dhaafo waxaan hagaajiyo min allah allah naga ajarsiiyo السلام عليكم